waxay wasaaraddu ku soo rogtay markii khilaafaadkii dhacay si loo ilaaliyo hantida dalka iyo ummadaba hakin in la saaro hantida shirkadda hakin in la saaro saamileyda shirkadda oo aanay dalka ka bixi karin oo ay hakinta hantida shirkadda ee Faqaayub taala ay ciidanka booliiska ee gobolka Togdheer ay gacanta ku hayaan ciidanka loo saaray waxaana la siiyay xuquuqdoodii muddo gaaraysay 5 sanadood ay ku lahaayeen shirkaddii hore halkana waxaan kaloo ka cadeynaynaa in kontraag u dhaxeeya shaqaalaha iyo wasaaradda aanu jirin ee kontraag u dhaxeeyo shirkadda iyo shaqaalaha waxa khilaaf ka dhashay saamileyda gudaha oo ah Somalilandriska iyo maalgashadaha oo ah Chinese depositka shirkadda akoonka ay ka furatay Amal Bank inaan wasaaraddu aanay ka mid ahayn saxiixayaasha oo halkan ku cad akoonkoodu iyo sida lacagta loo saaray waxaynu isugu nimi faahfaahin shirkadda Kulun iyo khilaaf ka dhaxeeya shirkadda iyo saamileyda shirkadda Kulun waxa weeye shirkad ka howlgasha deegaanka Faqaayub ee gobolka Togdheer shirkadda Kulun waxay wasaaraddu ruqsadda siisay ruqsad macdan qodisa waxaana ka horeysay shirkad loo oran jiray Big Rock shirkadda Kulun waxay wasaaradda liisan ka qaadatay 23 bishii 9aad 2024 mashruucaas shirkadaas markay wasaaradda ka qaadanaysay liisanka waxay ka koobnaayeen ajnabiga oo Chinese iyo muwaadiniin saamileyda Somalilanders shirkadaas waxay shaqeynaysay oo deegaanka ka shaqeynaysay muddada ay shaqeynaysay wasaaraddu waxay ka qabatay hawlo fara badan waxa kamid ah number 1 inay u kala u qabatay wasaaraddu heshiis ay qortay shaqaalihii ka shaqeynayay deegaankaas oo markii hore ay ka soo wareegeen shirkadda Big Rock aan lahayn wax kontaraaga ama xuquuq rasmiya waxay wasaaraddu u qortay heshiiskii koowaad iyadoo la sameeyay dhammaan muwaadiniintii ka shaqeynayay kontaraag loo sameeyo ama heshiiskaas oo ku caday xuquuqdooda waxaana la siiyay xuquuqdoodii muddo gaaraysay 5 sanadood ay ku lahaayeen shirkaddii hore wasaaraddu marka laga yimaado xuquuqda iyo mushaharkaas muddada 2025 gudihiisii ee shirkaddan cusub wasaaradda tamarta iyo macdanta waxay fulisay sanadkii 2025 iyadoo ka fulinaysa shirkadaha ka howlgala deegaankaas mashaariicdan soo socota wasaaraddu waxay wax ka qabatay dubadhiska iskuulka dubahabeynta iskuulka iyo deyrka iskuulka ee Eelbaxay wasaaraddu waxa kale wax ka qabatay madrasadda Ilcarma ee dhistay wasaaraddu waxay dhistay barkada Boqolcas ee deegaankaas wasaaraddu waxay gacanta ku haysay dhismaha barkada Eelbaxay oo isagu soconayay waxa looga fuliyo waxa kamid ahaa ambalaaskii deegaankaas oo wasaaraddu ugu deeqday siisay iskuulka boardingka oo gacanta ku haysay wasaaraddu sida daryeelkiisa macallimiinta intaaba waxay fulisay wasaaraddu sanadkii 2025 iyadoo ka fulinaysa budgetkii mashruuca horumarinta deegaanka maanta waxaan jecel lahay inaan halka ka sameeyno faahfaahin kooban oo ku saabsan shirkadda Kulun Mining Group oo ah shirkad ay wada leeyihiin nin ajnabi oo Chinese iyo saamiley ka kooban 6 qof oo reer Soomaaliland heshiiska nootaayada ku cad kuna taariikhaysan 23 bishii 9aad 2024 waxa wada galay saamileyda oo kala ah saamilaha maalgeliyaha oo ah Chinese iyo muwaadiniinta saamileyda gudaha oo ah Somalilanders heshiiskaas oo ay wasaaraddu ay ku siisay liisanka shirkadda Kulun Mining Group liisankaas oo noociisu yahay macdan qodista kooban shirkadaas taariikhdu markay ahayd 2025 bishii 10aad waxa khilaaf ka dhashay saamileyda gudaha oo ah Somalilandriska iyo maalgashadaha oo ah Chinese khilaafkaasi markuu wasaaradda soo gaaray wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta waxa uu magacaabay guddi soo xalisa khilaafkaas taariikhdu markay ahayd 22 bishii 12aad 2025 guddidaasi waxay hawsha xalkeeda ku gashay oo dhinacyada isugu yeedhay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer
waxaana halka isugu yimi muwaadiniintii saamileyda ahayd ee Soomaaliland dariska ahaa iyo ajaanibtii maalgeliyihii oo ah Chinese arinta xalinta khilaafaadku waxay ka bilaabatay koodii bishii koowaad oo ah sanadkii cusbaa ilaa 6dii bisha koowaad 2026 guddidu waxay si dhexdhexaadnimo leh u xalisay khilaafka soo kala dhexgalay dhinacyada shirkadda ku midaysan oo kala ah maalgeliyaha oo ah ajaanibta Chinese-ka ah iyo muwaadiniinta reer Soomaaliland guddidu waxa ay soo jeedisay qodobo markay dhageysatay dhinacyada iyo waxa la isku hayo iyo khilaafku waxa uu yahay guddida waxa uu cadaatay in hawshaasi ay ka balaabatay khilaaf soo kala dhexgalay saamileyda shirkadda guddidu waxay qoraalkii iyo talooyinkii ay bixisay la wadaagtay wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta isagoo tixraacaya qoraaladii iyo taladii guddidu soo jeedisay waxa uu go'aan ka soo saaray ka kooban 17 qodob sida qoraalka ku arkaysaan kuna taariikhaysan 13 bishii koowaad 2026 qoraalka qodobkiisa labaad waxa kamid ahaa in labada dhinac ka heshiiyaan wixii xisaab maaliyadeed dhex taala oo ah guddidu tii ay diristay oo ay ku kala dacwoonayeen inay lacag isku leeyihiin taana guddidu inay iyagu dhexdooda ka soo heshiiyaan bay go'aamisay wasiirkuna taas oo wareegtada ku soo saaray qodobka saddexaad wuxuu ahaa in la bixiyo mushaharka shaqaalaha muddo 3 bilood ah oo lagu lahaa shirkadda iyo gunnada shaqaalaha muddo 30 cisho ay shirkaddu ku bixiso kuna eeg 9 bishii 2026 guddidu sidoo kale qodobada 17 waxa ku jiray inaan waxba laga rari karin dhagaxii goobta yaala shirkaddu lahayd inuu buurtiisa yaalo inta mushaharka la bixinayo qodobada wasaaraddu ay soo saartay ee muddada ay u qabatay dhinacyadu ma fulin umana hoggaansamin isla bishii saddexaad balowgeedii kulan dambe ayaa la isugu yimid wasaaraddu isugu yeedhay saamileyda shirkadda oo dhinaca iyo wasaaradda tamarta iyo macdanta kulanka waxa la isla qaatay shirkaddu markii oo dhinacyadeeda ka kooban iyo wasaaraddu haddii go'aamadii hore ay fulin waayeen wasaaraddu in la xisaabtan siiyo isla markaana ay wasaaraddu guddi dambe u saarayso hawsha guddidaasna ay xisaabtan siiso liisankiina nimanka markii ay wada shaqayn kari waayeen oo ay yiraahdeen lama shaqayn karo saamileyda gudaha anagu way iska baxaynaa wasaaraddu waxay go'aamisay waxay tirtirtay liisankii wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta wuxuu soo saaray wareegto 26 bishii 2026 liisanka lagu tirtirayo isla markaana wasiirku wuxuu guddidii hore u sii xil saaray inay hawshii halkii ka sii balaabaan oo xisaabta siiyaan xisaabtankaas guddidii hawsha gacanta ku haysay oo bishii saddexaad oo dhan waxay soo saartay 29 bishii saddexaad 2026 go'aankaas oo lagu xisaabtan siiyay lacagihii ay shirkaddu isku lahayd tii shaqaalaha kambanigii maalgeliyahana loogu diray oo la yimid 7 cisho gudahood ku soo bixi wasaaraddu shirkadda kullun hawsheeda muddo badan bay gacanta ku haysay ilaa haddana gacanta ay ku haysaa qalabkii oo lacag badana iyo dhagaxii kambanigu intuba halkii bay yeeleen wasaaradduna waxay amartay inaan waxba laga qaadi karin inta lacagta la bixinayo waxaan halka cadaynaynaa ka wasaarad ahaan in mas'uuliyadaas khilaafka oo laba dhinac oo hawshooda muddo badan socotay inay wasaaraddu ilaa hadda gacanta ku hayso ayna ku rajo weyntahay in hawshaasi ay dhamaato go'aamadii laga soo saaray in dhammaan dukumeentiyadoodii aanu jecelahay inaan warbaahinta wada tusno shirkadda warbixinteedu waa sida cidii ka hadashay warbaahinta ee eedaynta sameeynayay waxaan jecelahay anagu dawlad baan nahay wasaaradda tamarta iyo macdanta wadooyinka sharci ayaanu u maraynaa qofkii cadayn hayaanada isaga sheegay wasaaradduna waxay ka ciyaartay doorkii waajibaadkii mas'uuliyadda ay xeerarku farayeen mar walbana wasaaradda waxa ka go'an inay dhiiri geliso maalgashatada iyo maalgelinta ta gudaha iyo dibadda qof kastaana uu shaqada
iyo sharciga dalka si dhexdhexaadnimo ku dareemi karo isagoo raacayadoo la raacayo xeerarka maalgashiga iyo kuwa kaleba maanta oo aan halkan u joogno inaan ka hadalno ujeedada khilaafka soo kala dhaxgalay shirkadda Kunlun oo ka kooban muwaadiniin reer Soomaaliland iyo maalgashato ajaaniba khilaafkaas oo bilaabmay isqabsi ka dhex bilaabmay xisaabeed oo ka dhex bilaabmay shirkadda dhexdeeda kaas oo saameyn ku yeeshay shaqaalihii iyo shaqadii socodkeedii muddadii khilaafkaas socday wasaaraddu talaabooyin badan bay qaaday oo ay ku xalinayso oo wasiirku u saaray guddi baadha khilaafka ka soo tala bixisa guddida loo saaray tala bixin ayay ka keeneen oo wasaaraddu ilaa iminka fulin maraya oo ay gacanta ku hayso muddadii mashruucaasi socday wasaaraddu talaabooyin badan ayay qaaday oo isi soo daba socday taas oo ah lagu ilaalinayo xuquuqda dalka muwaadiniintiisa iyo lagu ilaalinayo khayraadka dalka waxa kamid ah in kontraag loo kala sameeyay shaqaalihii boqolka ka badnaa ka shaqeynayay shirkadda Kunlun halkana waxaan kaloo ka cadeynaynaa in kontraag u dhaxeeya shaqaalaha iyo wasaaradda aanu jirin ee kontraag u dhaxeeyo shirkadda iyo shaqaalaha taasoo wasaaraddu ay u kala saxiixday heshiisyo rasmi ah xuquuqaadka shaqaalahana lagu leeyahay shirkadda Kunlun oo ku cad heshiiskii aanu soo kala saxiixnay shaqaalaha iyo shirkadda Kunlun waxaan kaloo halkan ka cadeynaynaa depositka shirkadda akoonka ay ka furatay Amal Bank inaan wasaaraddu aanay kamid ahayn saxiixayaasha oo halkan ku cad akoonkoodu iyo sida lacagta loo saaray lacagta kontraaga ay bangiga geeyeen oo akoonka ay ku furatay shirkaddu waxa iska leh shirkadda Kunlun oo ka kooban muwaadiniinta iyo ajaanibteeda saxiixayaasha akoonkuna uu ku kooban yahay iyaga cadeynta faahfaahinta akoonkana ay ku caddahay inaanay saxiixaas iyo lacagta saaristeeda aanay wasaaraddu aanay qayb ka ahayn wasaaraddu waxay qaaday talaabooyin badan markii uu bilaabmay khilaafaadku si ay u ilaaliso xuquuqda ajaanibta iyo muwaadiniinta iyo saamileyda shirkadda iyo deegaankaba waxay wasaaraddu ku soo rogtay markii khilaafaadkii dhacay si loo ilaaliyo hantida dalka iyo ummadaba hakin in la saaro hantida shirkadda hakin in la saaro saamileyda shirkadda oo aanay dalka ka bixi karin oo ay hakinta hantida shirkadda ee faqaayubta la ay ciidanka booliiska ee gobolka Togdheer ay gacanta ku hayaan ciidanka loo saaray wasaaraduna ay hakisay dhaqdhaqaaqa iyo inay dalka ka baxaan mas'uuliyiinta shirkadda waxay kaloo wasaaraddu sameysay laalista shirkadda ruqsadeedii oo wasiirku laalay wareegto oo ka soo saaray kadib markii ay shirkaddu ku fashilantay inay u hoggaansanaato shuruucda dalka u yaala oo ka dhashay khilaafaadkii wasaaraddu waxay guddi u saartay guddi soo xaqiijisa xisaabta lagu leeyahay shirkadda iyo hantideeda ka taala shirkadda iyada ah dhagax production kiya iyo hantidii qalabkii ka yaalay guddidina xisaabtii way soo dhameystirtay la isku lahaa waxaan muwaadiniinta ugu sheegaynaa halkan uga cadeynaynaa shaqaalaha ahaa inay istajiyaan wasaaraddu ay mas'uul uga tahay hantida laga hakiyena 3 laab ay ka badan tahay hantidii lagu lahaa shirkadda maadaama wasaaraddu mas'uul uga tahay ay u hakisay arintaasina fulin ay marayso oo si sharci ah lagu kala saari doono muddooyinkan dhow oo ay marayso fulin dhammaan saamileyda iyo dadka ka hadlaya khilaafaadka shirkadda waa khilaaf sharci khilaafka sharcina waxa weeye waa qoraallo qoran qoraaladaasna ay tahay si sharci ah loogu kala saarayo hantidaasna aanay lumayn oo dawladdu ay u hakisay wixii ay ku leedahay shirkadda deegaanku ku leeyahay qarankuna uu ku leeyahay
lagu kala bixi doono maadaama shuruucdu dalku leeyahay shuruucda dalka ee aan lagu kala bixi doonin war-saxaafadeedo iyo si kale amnigana la ilaaliyo maadaama muwaadiniinta ay xuquuq leeyihiin maalgashadaha hantidiisuna xuquuq leedahay maalgashadaha xuquuqdiisana la ilaalin doono muwaadiniintana la ilaalin doono cidna aanay xaqiis lumi doonin dowladuna tallaabooyinkii sharcigu ina farayay ee loo baahnaa laga qaaday